Maalintaas asagu waxay u ahayd maalin aad iyo aad u adag. Maalinkii oo dhan ayuu baddana joogay, kalluunna raadinayay. Laakiin kalluunkii markii uu soo helay muxuu la kulmay? Wuxuu ahaa nin kalluumaysta ah, waxa uuna ka soo jeeday qoys aad iyo aad u danyar ah. waxa uuna ku maareyn jiray noloshiisa waxii oo maalinkaas uu badda ka soo helo. Maalinkii dambe sidii caadada ahayd wuxuu soo aaday baddi, laakiin nasiib darro waxba shamaagtii oo badda u riday waa u soo qaban weysay. Kadib Ilaahay ayuu baryey, isaga oo u dan sheegtay kana baryey in uu malay fiican oo maanta soo siiyo. Kadibna waxa uu ku noqday baddi, waxa uu tuurtay shamaagtiisii, waxa uuna soo helay malay aad iyo aad u weyn. waxa soo faraxsan ayuu waxa uu soo aaday xaggii iyo suuqii ayuu soo aaday. Intii uusan suuqa soo aadin, waxaa jiray nin boqor ah oo dadka xoogo aan u aaba yeelin. Waxa uu la kulmay ninkii oo wato malaygii aadka u weynaa. Wuxuu yidhi, malaygan maanta wuxuu ku fiican yahay in aan saaxiibtay hadiyad ahaan aan ugu geeyo. Ninkii ayuu malaygii ka xoogay, asaga oo wax lacag aan ka siinin ayuu ka qaatay. Ninkiina awood uu isaga celiyo ama uusan kula diririn ma uusan lahayn, oo Ilaah unbuu baryey. Ilaahayow waa u jeedaa maanta wuxuu i tusay awooddiisa, iyo adigana awooddaada tus, quwaddaada i tus. Ninkii markii uu malaygii qaatay oo la tagay meeshii u socday, intii uusan guddoonsin gabadhii oo ugu talagalay intuu siin, ayaa malaygii waxa uu ka qaniinay meydka ahaa, waxa uu ka qaniinay suulka ayuu ka qaniinay. Boqorkii aad iyo aad ayuu ula yaabay qaniinyada, waxay ahayd mid aad iyo aad u xanuun badan. Habeenkii boqorkii waa uu ka seexan waayey xanuunkii qaniinyada oo malayga u geystay. Fartii oo suulka ka qaniinay ayaa hurguntay. Waxaa la geeyey dhakhtar. Waxaa la yidhaahday suulkan kaankara ayuu qaaday, waa in la jaraa. Waxaa laga jaray suulkii ayaa laga jaray. Waa la joogay haddana oo xanuunkii waa uu deyn waayey, oo calaacashii oo dhan ayaa xanuuntay. Waxa uu ku noqday dhakhtarkii. Waxaa la yidhi xanuunkan waa uu gudbay, waxaana laga jaray gacanta, calaacashi inta hore ayaa laga jaray. Laakiin xanuunkii ma uusan dayn, meeshiisii ayuu ka sii waday, oo gacantii dhan dhudhunka wixii ka hooseeya dhan ayaa xanuunaysay. Dhakhtarkii markii loo geeyeyna waxa uu yidhaahday laasim waxaa ah in laga jaro gacanta oo dhan. Boqorkii gacantii ayaa laga jaray, xanuunkiina weli ma uusan daynin. Asaga oo rafaasan ayaa ninkii dhakhtarka ahaa ee daaweynayay waxa uu la kulmay nin oday ah oo xakiim ah. Waxa uu sheegay dhibaatada dhacday iyo sida wax u jiraan. Wuxuuna kula taliyay boqorkan intii asagoo dhan uusan go'go'in, waxaa u fiican in uu la kulmo ninkii oo malayga ka xoogay, cafisna uu weydiisto. Ninkii dhakhtarka ahaana wuxuu u soo noqday boqorkii, taladii ayuu u sheegay. Boqorkiina wuxuu yidhaahday ha la ila raadiyo ninkii aan malayga ka xoogay. Markay u tageen, wuxuu ka codsaday nin yahow maalinkii aan malayga kaa xoogay, ilaa haddaba dhibaato unbaa lugaha la sii galayaa, ee waxaan doonayaa inaad iska cafisid. Ninkii masaakiinka ahaa nin wuxuu ahaa iska beer jilicsan, wuu iska cafiyey. Laakiin waxaa la yidhi, nin yahow ninkan maxaa ku samaysay? Wuxuu yidhi, aniga wax kale kuma aan samaynin, Ilaahay uun baan baryey. Ilaahayow waxaan idhi, ninkan awooddiisa uu i tusay, adigana awooddaada tus. Ilaahayna wuu iga aqbalay. Sidaas ayaana boqorkii xubnihii kale uga badbaadeen. Qisadan markaa maxaynu ka fahmaynaa? Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday, qofka la dulmiyey ducadiisa iska ilaaliya, oo habaarkiisa waa la aqbalaa qofka la dulmiyey. Mar walbana waxaa wanaagsan in aadan ummadda u awood sheegan. Ilaahay ayaa kaa awood badan, awooddiisa saraysaa. halkaas ayayna maanta qisadeennii aanu kusoo gabagabaynaynaa. Wabillaahi towfiiq. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.